Qaraxan oo ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa waxaa lala eegtay kolonyo ay wateen saraakiil ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaana la qarxiyay xilli ay marayeen wadada 21 Oktoobar dhabarka dambe ee xirada Afisiyoni. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxa. halkan oo ah dhabarka dambe ee xirada Afisiyoni waxaa ka dhacay qarax ismiidaamin ah kaasi oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay isla markaana geystay khasaarooyin isugu jira mid naf iyo maalba leh. waxaa inta la xaqiijiyay ku geeriyootay qaraxan ilaa iyo 5 qof halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Caliyar. sida meeshan u jeedaan intii khasaare dhacday sida cadowga joogtada ahayd bartilmaameedsanayay dadka Soomaaliyeed iyo hantida wadada Soomaaliyeed shaqadoodii bay halkii ka sii wadaan qarax ayaa halkan ka dhacay khasaarada ilaa hadda inta aan ka warqabno waa 5 askari iyo 5 qof oo rayid ah wax dhibo oo hadda inta ka badan oo dadka ay jiraan cidda la tarbiyeeyay iyo sababta loo tarbiyeeyayna baaritaanada la sameeyay soo bixi doonaan waa ugu dadka gaarigaas halkaas ka dhacay innagana waxaan leeyahay dadka meeshaas dadku ku dhamaado laakiin gaariga ku jirnay maana bulshada xarada soo socda khasaarada hadda ka dhacday waxaan baari doonaa laamaha amniga wixii jawaaban haddii la yiraahdo marka ugu horeysa oo baaritaan ku dhamaado yani la wadaagi doonaa waxaan markale ku soo jeedinaynaa laamaha amniga inay xoogga saaraan sidii amniga ilaalada amniga loo xoojin lahaa runtii maalmihii la soo dhaafay iyo bilihii la soo dhaafay waa rooneen dadaal badan iyo waqti badan aan geliyay haddeerna lama cabsi gelin karaa daacadii shaqadiisa soo wataa oo ah inuu waddanka isbixiyo annagana shaqadeena wadana inaan dalka badbaadino dadka Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa inay taxadaraan waa waxyaabaha aan dejinayno oo aan leeyahay amniga maaragtay waxyaabaha oo laga ganacsan kara kamid maaha waxaan rabnaa in dadku taxadaraan inay gurigooda joogaan ama ismaaliyaan cadowga waxay isku dayayaan maalmaha soo socda inay xoojiyaan oo dadka Soomaaliyeed dhibaateeyaan annagana insha Allah tacaala waxaan sida caadada ahayd ku doonaa inaan annaga xoogga saarno inaan dadka iyo naftooda iyo hantidooda inaan badbaadino dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay nala shaqeeya laamaha amniga la shaqeeya guddiga jooga inta wax isbedelayaan yani waxyaabahan hadda la wado oo la rabo siyaasadda lagu gaaro yani intiina lagu fadhiisanaya annagana aadeennada ugu badan naftiina halgumina guddiga jooga waa maasinta waxaa khasaaradana waxaa lagu sheegay in askari oo dhimasho ah 5 qof oo rayid oo dhaawac ah iyo gawaaridan meesha ku burburtay annaga marnaba ma dhici doonto haddii ilaa yidhaahdo cadow inuu nagu jibiyo intaan annaga shaqada imaana dad kale Soomaalida shaqadan soo wari annaga haddaan wadna dad kale daga dambeeya Soomaalida aduunka inay ka shaqeeyaan isugu doonaan al-shabaabna nagama adkaan doonaan intay ka qarxiyaan isla markiiba nadaafadaas ay gabdhaha iyo wiilasha ku wadaan nagama adkaan doonaan waxaan rajaynaynaa 10 daqiiqo soo socota wadada in la furo si ay ahaato waa maasinta markasta oo siyaasadda qalqal gasho amniga siyaasadda badan isla socdaan markasta oo siyaasadda qalqal gasho amniga waxaa aan qarin karin saameynta markii dadka amniga la saaray ee amniga sida soo dhawaatada waxaan rajaynaynaa marka hadda si ay sheegay meesha ay ku duunahay ayaamii la soo dhaafay waa roonay waxyaabaha yadda guuleysiga iyo xafidaadka iyo waxyaabaha sida amaana waxyaabihii ilaahay dhawaatada ah waa ka nabad qabnay hadda waxaan rajaynaynaa Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda wararkaasi waxa ayna sheegeen inay la beegsadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan UN-ka isla markaana ay khasaarooyin lixaad leh ay gaarsiiyeen muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanayay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka falalka ladiga ku ah amniga kuwaasi oo si isdaba joog ah uga dhacayay qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho. Salaad Maxamed, Salaad Soomaali, Raadsan TV, Muqdisho.